magaalada Garowe waxaa si weyn looga dabaaldegay munaasabada Ciidul Adha barxadda weyn ee ku taal Garowe ayaa waxaa isku soo baxay boqolaal dadweyne ayagoo ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland sida warkaan uu nagu soo diriyay wariyayna Maxamed Saciid Yuusuf oo naga soo warama Garowe magaalada Garowe waxa ay maanta kala sinay dunida muslimka ah gudashada salaada ciida iyo farxadda dadka oo ku soo labistay dharkoodii ugu quruxda badnaa idoona maanta boqolaal dadweyne ay salaada kula tukadeen masjidka Saxaaba ee magaalada Garowe madaxda Puntland oo hogaaminayay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo golayaasha xukuumadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inta aan la gudagelin salaada ayaa waxaa khudbado ka soo jeediyay halkaasi madaxdii ka qayb gashay oogida salaada culimo diin iyo isimo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka waramay marxaladda hadda dalku in Soomaaliya maanta ay leedahay dawlad taam ah oo meel gaar ah in Soomaaliya maanta ay leedahay dastuur federaal ah in Soomaaliya maanta inteedii badnay dadkii dhibta ku hayay laga xoreeyay inkastoo wali wadankii meel badan ay ka joogaan aad moodana hadda laftigeeda mandiqada hadda aan joogno in ay dhib ku hayaan oo ay ku soo badanayaan loona baahan yahay runtii in aad looga shaqeeyo loogana feejignaado waxa waajibka waxa weeye sida uu islaamku sheegay shacabka sheegay dawladda iyo shacabka in laga wada shaqeeyo danta guud madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa jeediyay ayaa ka hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland wuxuuna xusay in sanad kadib ay Puntland ka dhici doonto doorasho dimuqraadiyada oo shacabku soo dooran doonaan madaxda Puntland hogaamin doonto axsaabtii sharcigeeda waa la sameeyay qaabka referendumka loo qaadi lahaa waxa lagu dhawaaqay bishii dhaweyd September in axsaabtii rasmiga la furan karo ayna ugu soo horeyso doorashooyinka munishiibiyooyinka ama dawladaha deegaanka oo Puntland ka hirgelaya oo laga dooranayo inta degmo oo Puntland ka kooban tahay hadalka madaxweynaha oo dheeraa waxa uu taabanayay xukuumadda Soomaaliya ee dhawaan la soo dhisi doono iyo sidoo kale maamul samaynta jubbooyinka marka laga yimaado salaada ciida waxa ay ahayd Garowe maanta mid ka duwan ciidihii hore waxaana tan iyo xalay da'ayay roob iyo dhigay Maxamed Saciid Somali Channel Garowe.